kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan ku eegayno qoraal dheer oo afka Ingiriiska ku qoraa kaasi oo uu boggiisa Facebook ku baahiyay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Faysal Cabdi Rooble waxaana afka Soomaaliga u turjubay Cabdi Majiid Aadan. Baasinka webiga Niil iyo helitaanka marin badeed istiraatiijiyadda weyn ee labada marin biyood ee Itoobiya. Waxaan idin la wadaagayaa dib u eegis kooban oo ku saabsan waxa xisbiga barwaaqo uu u arko inuu yahay istiraatiijiyadiisa ugu dambaysa ee ku wajahan helitaanka marin badeed. Macadka arrimaha dibadda oo ah xarunta fakarka siyaasadda dibadda oo fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo iskaashi la leh safiirro sare, diblomaasiyiin iyo jaamacadda Addis Ababa ayaa abaabulay istiraatiijiyada ballaaran oo uu ra'iisul wasaare Abiy ku wajahayo labada marin biyood ee webiga Niil iyo badda Cas. Buug-yarahan oo ka kooban ilaa 53 bog oo leh faalooyin meelaha qaar ayaa ilaa hadda la siiyay hoggaanka ugu sarreeya xisbiga barwaaqo ee talada haya. Dokumentigan waxa uu ku qoran yahay kaliya af Axmaari wuxuuna weli u baahan yahay in loo turjumo af Ingiriis si loo siiyo dadweyne ballaaran. Dokumentigan wuxuu xadgudub ku yahay sharciga caalamiga gaar ahaan wuxuu muujinayaa sheegashooyin aan horay loo arag oo ku saabsan wadamada deriska ah. Ciwaanka buug-yarahan markii loo bedelo af Ingiriis wuxuu noqonayaa istiraatiijiyadda weyn ee labada marin biyood. Labada marin biyood ee halkan lagu xusay waa webiga Niil iyo badda Cas. Waxa diiradda lagu saaray falanqayntan waa taariikhda, diinta iyo siyaasadda ku saabsan labada marin biyood iyo aragtida diimeed, taariikheed iyo siyaasadeed ee dawladda Itoobiya ee ku wajahan biyahan. Warbixintu waxa ay bilowgaba sheegaysaa in labadaasi marin biyood ay khatar amni ku yihiin Itoobiya. Waxa kaloo ay ku andacoonaysaa in biyahani ay yihiin ila lagu muransan yahay oo ay ka dhaxaloosmi karaan dagaallo saddex dhinac ah kuwaas oo ay wadaagaan dadka isticmaala biyahaasi. Sidoo kale waxay cadaynaysaa in horumarka mustaqbalka ee waddanka uu si adag ugu xiran yahay biyahaasi. Taariikhdu waxay muujinaysaa in xilliyada Itoobiya ay haysatay ama ay heli lahayd biyahaasi ay jireen fursado wanaagsan oo barwaaqo ah. Sidaas daraaddeed warbixintu waxa ay dib u raacday xilligii ka horreeyay Masiixiyadda markii Itoobiya ay gacanta ku haysay labadaasi marin biyood. Xagjirnimadaasi waxa kale oo barbar socda dood diimeed oo sheegaysa in Itoobiya uu Alle ku manaystay inay haysato labada marin biyood ee Niil iyo weliba badda Cas. Doonitaankaasi wuxuu tusayaa in arrimaha diintu ay door muhiim ah ka qaadan doonaan gaarsiinta Itoobiya marin badeed ama xakamaynta qulqulka biyaha Niilka. Si loo xakameeyo webiga Niilka ama dib loogu soo ceshado marin badeed, istiraatiijiyad weyn oo waali ah ayaa la sameeyay taas oo u baahan doonta in la abaabulo dhammaan kheyraadka qaranka Itoobiya iyo in la isku duburido hay'adaha dawladda si loo gaaro istiraatiijiyadda weyn ee labada marin biyood. Tusaale ahaan, Itoobiya waxa ay leedahay baasinka Niil iyo helitaanka marin badeed waa arrin amni qaran. Khatarahani waa kuwa jiray xilligii hore iyo haddaba. Sidaas darteed waxa loo baahan yahay in la sameeyo istiraatiijiyad dhammaystiran si loo wajaho khataraha ka imanaya dibadda. Waxa loo baahan yahay in la isticmaalo awoodaha qaranka oo dhan si loo suuliyo khatarahan. Ujeedadaasi awgeed waxa loo baahan yahay in la qeexo 3 aag oo mudnaan leh oo isdhamaystiraya awoodda military, kobaca dhaqaale iyo dadaalka diblomaasiyadeed. Taariikhda webiga Niil sanadkii 1959 Masar waxa ay isticmaali jirtay webiga oo lagu qiyaasay 55.5 bilyan oo mitir cubic ah iyo 14 mitir cubic ah oo Suudaan isticmaali jirtay. Intaa waxaa dheer cutubkani wuxuu diiradda saarayaa siyaasadda caalamiga iyo baahida dalalka Carabta oo ku aadan soo saaridda cuntada. Tan iyo 2008 markii bariga dhexe uu la kulmay cunto yari, siyaasadda webiga Niil waxa ay noqotay mid aad muhiim u ah. Warbixintu sidoo kale waxa ay xustay in xubnaha jaamacadda Carabta ay la jiraan Masar dooda ku saabsan ama arrinta la xiriirta webiga Niil. Warbixintu waxay faahfaahin ka bixinaysaa sida Itoobiya ay u aragto halgankeeda ku aadan horumarinta biyo-xireenka Abay iyo sida ay diyaar ugu tahay inay la dagaalanto Masar. Itoobiya waa ciyaaryahan muhiim ah arrimaha labada marin biyood, webiga Niil iyo weliba badda Cas ee xeebta. Si Itoobiya ay uga sii horeyso waxa ay ilaa hadda gaartay waxay u baahan tahay inay dib u hesho marin badeedkii taariikhiga ah
kaasoo hore u suurtageliyey inay noqoto waddan awood leh, inay yeelato siyaasad cad oo wax ku ool ah oo ku aadan labada marinbiyood waa arrin qaran oo muhiim ah. waxaa jiri doona caqabado diblomaasiyadeed marka aan hirgelinayno istiraatiijiyadeenna ku wajahan labada marinbiyood, laakiin waa inaan u adkaysannaa si aan u gaarno yoolalka qarankeenna. cutubka afraad ee buugyarahan waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan buugga, iyadoo uu sababo u raadinayo helitaanka marinbadeed ee xisbiga barwaaqo iyadoo oo loo marayo diinta iyo taariikhdii hore ee aan la xaqiijin. waxa ay qoraysaa waxyaabaha soo socda turjumidayda afka Axmaariga. ciwaan hoosaad: waqtiyadii Aksum iyo Zagwa. warbixintu waxay ku tiirsan tahay buugga G.W.B. Huntington ee 1980 The Palace of Eritrean Sea, halkaasi oo ganacsiga ka dhaxeeya saldanadaha muslimiinta iyo boqorada Aksum uu ka jiray. ugu dambeyntii warbixintu waxa ay timaadaa dagaalkii 1523 oo gebi ahaanba iska indhatiraysa dagaalkii Axmed al-Gaza. waxa ay ku tilmaantaa dagaal sukeeye oo Itoobiya dhexdeeda ah, iyada oo la tixraacayo oo la soo xiganayo xisaabaadka Alfa Yacquub. waxa ay sheegaysaa in qarnigii 9aad ilaa qarnigii 12aad boqortooyada Zagwa dekadda ugu weyn ee Abyssinia ay adeegsan jirtay ay ahayd Saylac. sidoo kale waxay ku doodaysaa in Saylac ay ka tirsanayd Abyssinia. warbixintu si taxadar leh ayay u dul istaagaysaa taariikhda Itoobiya ee raadinta dekad laga soo bilaabo 1855 ilaa 1991. halkan dood ku saabsan taariikhda iyo falanqaynta xaaladaha oo waxyeello u geysan kara Eritrea ayaa la hormariyay. warbixintu waxa ay ku doodaysaa in haddii Itoobiya aysan iska indhatirin sharciyada caalamiga iyo kuwa goboleed oo ay ku jiraan xeerarka wadamada deriskaha, aysan ku guuleysan doonin in ay yeelato dekad ama ay hesho marinbadeedka ay Itoobiya doonayso. sida warbixinta ay ku doodayso, Itoobiya waxa ay doonaysaa marinbadeed aan la hor istaagi karin oo ku salaysan amniga qaranka iyo kobaca dhaqaalaha ee dalkeeda. arrinta Eritrea, warbixintu waa mid walaac leh. waxay ku qoraysaa xilligii boqor Minilik iyo heshiisyadii lala galay Talyaaniga ee Eritrea, maadaama heshiisyadan laga saxiixay Eritrea ay ahaayeen kuwo lagu qasbay. waa la isweydiin karaa, maxkamad sharciyeedna lala tigsan karaa, loomana saxiixin si ikhtiyaar ah. falanqayntani waxa ay dejinaysaa saadaasha sheegashooyinka mustaqbalka ee ku saabsan Asab iyo weliba Masawa ee Addis Ababa oo sheegaysa in ay ku waayeen gacanta hogaamiye fawda ah Mali Zenawi. samaynta ciidamada badda ee xooggan waa mid ka mid ah istiraatiijiyadaha ugu sarreeya ee dalka, xataa iyada oo aan lahayn dekadda. ciidamada badda ee ilaalinaya maraakiibta ganacsiga Itoobiya ee badweynta waa arrin xasaasi ah oo la xiriirta amniga qaranka. Djibouti ilaa hadda si wanaagsan ayay ugu adeegtay Itoobiya, laakiin kharashka lagu maalgeliyo canshuuraha waa culays weyn oo ku yimaada kobaca dhaqaale Itoobiya. sidoo kale Djibouti waxa ay ka fog tahay bartamaha wax soo saarka Itoobiya. markii cutubkaasi la soo gabagabeeyo, xeeladaha soo socda ayaa la soo jeediyey. ujeedada shanaad: in la abuuro ciidanka badda oo labadaba u adeega arrimaha militariga iyo ganacsiga. sidoo kale in la dhiso ciidan difaaca qaranka oo awood leh. tani waxa ay gacan ka geysanaysaa sugidda amniga qaranka. waxa kale oo la tixgeliyey xulashooyinkan. xulashada koobaad: Itoobiya waxa ay ku xidhan tahay Eritrea iyo Djibouti. sidaas daraadeed waxa ay tixgelinaysaa labadan wadan inay yihiin xulashada koobaad. Eritrea waxay aad ugu dhowdahay Itoobiya dhinaca dhaqanka iyo taariikhda. waa in la sameeyaa dadaal lagu soo celinayo oo lagu sii wado xiriir wanaagsan oo lala yeesho Eritrea. xulashada labaad: Djibouti ilaa iyo hadda waxay u adeegtaa sida dekadda ugu weyn ee Itoobiya. si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walaac ku saabsan kala guurka iyo waxa ka dhalan kara iska horimaadka ka dhici kara ciisaha iyo canfarta. sidoo kale joogitaanka awoodaha waaweyn waa walaaca labaad. xulashada saddexaad: Somaliland ama Soomaaliya waxay ku jirtaa halis, sababtuna ay tahay muranka ku saabsan aqoonsiga. sidoo kale Saylac iyo Berbera waa kuwo aan si fiican loo horumarin, kuma caawin doonaan mustaqbalka dhow, laakiin waxay faa'iido yeelan karaan mustaqbalka fog. suurtagal ma aha
in saddexdan waddan ee xeebta leh ay noqon karaan kuwa cadow ku ah Itoobiya waa inay u diyaar garowdaa dhacdadan waana sababta ay Itoobiya u soo bandhigtay labadan halis si ay ugu fuliso heshiiskii is-afgarad ee ay la gashay gobolka Somaliland ee Soomaaliya. Xeeladda koobaad in lagu qabsado dekedaha Soomaaliya xoog sida Israa'iil ay ugu qabsatay buuraleyda Golan kadib dagaalkii 6 maalmood ee 1967. Xeeladda labaad in la isticmaalo duulaan la mid ah kii Ruushka uu ku qaaday Ukraine halka Itoobiya ay qabsan lahayd dhul xeeb ah si ay u hesho marin iyo saldhigyo istiraatiiji ah oo aanay marnaba ka tanaasulin. Labadan xaaladoodba bulshada caalamka waxa ay ka daali doontaa in ay ka hadasho Itoobiya sida lagu sheegay warbixinta. Ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahinintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda